salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabagalka wararka waa 27 bisha 7 sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah Ahmed Madoobe oo shaaciyay liiska musharaxiinta aqalka sare kooxda farmaajo oo sharaxaysa wasiirka arrimaha dibadda haddaba halkee loo wadaa oo musharax uu ka noqon doonaa xog waran ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan guddi baaritaan oo loo saaray kiiska Ikraan Tahliil oo weli Muqdisho lagu laayahay xafiiska ra'iisul wasaaraha Suudaan oo isku qalday sawirada madaxweyne farmaajo iyo madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo 400 oo shacab Soomaali ah oo lagu xasuuqay Itoobiya iyo dagaal culus oo ka socda halkaasi intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay janalkan ku soo biiro subscribe saar muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janalkan haatanna warkiyo fitan qoraal ka soo baxay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madoobe oo ku socda gudoomiyaasha guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa lagu shaaciyay liiska musharaxiinta qayb ka mid ah kuraasta aqalka sare ee Jubbaland laga soo dooranayo nuqul ka mid ah warqadaasi oo heshay warbaahinta ayaa waxa uu madaxweyne Ahmed Madoobe ku gudbiyay liiska musharaxiinta 4 kursi kuwaas oo tiradoodu ay dhantahay 9 xubnood iyo sida ay u tartami doonaan waxaana ay kala yihiin Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Axmed Maxamed Jaamac Xaliimo Jaamac Maxamed iyo Cabdirasaaq Maxamed Cismaan Elias Badal Gaboose Maxamed Axmed Sayid iyo Sharmaake Maxamed Axmed saddexdaana way tartami doonaan iyo Ibraahim Yacquub Ismaaciil iyo Iftiin Xasan Iimaan kuraasta afarta ah ee uu maanta gudbiyay madaxweynaha Jubbaland ayaa waxay ka mid yihiin 8 kursi oo Jubbaland ay ku leedahay aqalka sare waxaana wali dhiman liiska musharaxiinta 4 kursi oo kale Jubbaland ayaa noqonaya maamulkii u horeeyay ee gudbiya qayb ka mid ah liiska musharaxiinta aqalka sare xilli maanta guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland uu soo saaray jadwal cusub guddiga ayaa maanta taariikhdu ku beegan tahay 27 bisha Juulaay waxa uu dajiyay in lagu shaaciyo magacyada musharaxiinta iyo jadwalka midaasi oo ku eg in 6 PM ka hor lagu soo wada gudbiyo liiska musharaxiinta sidoo kale waxa uu guddiga jadwalka cusub ee uu maanta soo saaray ku sheegay in diiwaangelinta qabashada codsiyada iyo shubitaanka qidmooyinka ay bilaaban doonaan maalinta bariya oo taariikhdu ay ku beegan tahay 28 bisha Juulaay sida uu dhigayo jadwalka ay maanta soo saareen guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland hadal jeedinta musharaxiinta iyo doorashadoodu waxay qabsoomi doontaa maalinta Khamiista geesta kalena kooxda farmaajo waxay sharxayaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo maalmahan ku sugnaa waqooyiga magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa u sharaxan kursi ka mid ah golaha shacabka oo deegaan doorashadiisu ay tahay gobolka Mudug wasiir Maxamed Cabdirasaaq ayaa la sheegay in musharaxnimadiisa uu taageero xoog leh kaga helayo kooxda ololaha doorashada u qaabilsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq ayaa tartan u gali doona mid ka mid ah kuraasta beeshiisu ay ku leedahay golaha shacabka Soomaaliya siday ku warantay warbaahinta wasiir Maxamed Cabdirasaaq waxa uu kooxda ololaha dib u soo noqoshada madaxweyne Farmaajo wakiil kaga yahay gobolka Mudug wasiirkan ayaa hogaamin doona qorshe xildhibaanada gobolkaasi ka soo galaya baarlamaanka Soomaaliya loogu soo saarayo xubno taabacsan madaxweyne Farmaajo sida wararka la helayo ay tilmaamayaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo ka mid ah siyaasiyiinta sida aadka ugu dhow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr jeer oo hore golaha ammaanka qaramada midoobay u gudbiyay dacwad ka dhan ah madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ugu yaraan 3 jeer ayaa la sheegay in wasiir Maxamed Cabdirasaaq uu golaha ammaanka qaramada midoobay horgeeyay dacwado ka dhan ah madaxda Puntland iyo Jubbaland intii uu taagnaa khilaafkii doorashada maadaama ay aad kaga soo horjeesteen damacii Farmaajo ee ahaa muddo kororsiga maalin ka hor wasiirkan oo gaaray magaalada Galkacyo ayaa kulamo la qaatay ismada beeshiisa oo degta waqooyiga magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug loolan adag ay kooxda Farmaajo kala kulmi doonta in saameyn ay ku yeelato xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ka soo galaya Puntland maadaama hogaamiyaha maamulkaasi
ay aad isugu hayaan siyaasadda farmaajo isla markaana uu ku jiro damac ku aadan inuu isku soo sharxo xilka madaxweynaha Soomaaliya. dacwada kalena guddi baaritaan ayaa loo saaray kiiska Ikraan Tahliil oo Muqdisho lagu waayay. waxaa muddo bil ka badan nolol ama geeri aan lagu hayn Ikraan Tahliil Faarax oo ka shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. waxaana gabadhan markii ugu dambeysay gurigeeda ay ka baxday 26 bishii Juun ee sanadkan. gabadhan ayaana kiiskeeda hadal hayn badan abuuray, waxaana ehelada gabadhan xildhibaano iyo siyaasiyiin kaleba ay sheegeen in Ikraan ay tuhumayaan inay afduubteen ama ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda. xeerlalyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jenaraal Cabdullaahi Buule Kemey ayaa u magacaabay 3 sargaal oo ka kala socda xafiiska xeer ilaalinta, booliska iyo nabad sugidda baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo weli nolol iyo geeri aan lagu hayn. Jenaraal Cabdullaahi Buule Kemey ayaa faray taliska ciidamada nabad sugidda inay kala shaqeeyaan saraakiisha magacaaban wada kasta oo lagu gaari karo danta cadaaladda ee Ikraan. xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa sidoo kale aqbalay furashada galdacwadeed ay u soo gudbisteen ehelka Ikraan Tahliil Faarax kuwa oo tuhmaya in maqnaashiyaha gabadhooda taliska nisa ay ku lug leeyihiin. dhinaca kalena xafiiska ra'iisul wasaaraha Suudaan oo isku qalday sawirada madaxweyne Farmaajo iyo ekis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdullaahi Xamduug ayaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxda 4 dawladood oo kamid ah dawladaha urur goboleedka IGAD. ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa la hadlay madaxda kale ah madaxweynaha muddaxileedkiisa u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee geeska Afrika. bayaanka ayaa intaas ku daray in ra'iisul wasaare Cabdullaahi Xamduug uu la sii xiriiri doono madaxda kale ee geeska Afrika si looga wada shaqeeyo xasiloonida iyo horumarka gobolka. dhinaca kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Suudaan oo ka hadlayay wada hadalkan ayaa isku qalday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii sawirka Xasan Sheekh Maxamuud lagu baahiyay bogga rasmiga ee xafiiska iyadoo lagu dul qoray magaca Farmaajo. sawirku waa Xasan Sheekh, magaca ku qoranna waa Farmaajo. saacado kadib ayaa sawirkii laga saaray bogga iyadoo aan la soo bedelin sawirkii Xasan Sheekh. ilaa haddana wax cudurdaar ah dawladda Suudaan kama bixin arrintani. ugu dambeynna warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya Soomaalida iyo Canfarta oo dib kaga qarxay dalka Itoobiya kadib markii maamulka Canfarta ay xasuuqeen dad gaaraya 400 oo qof oo Soomaaliya. dagaalka oo ah mid aad u xoogan ayaa waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Garbaciise oo ku taala wadada dheer isku xirta wadamada Itoobiya iyo Djibouti. wararku waxay sheegayaan in dagaalka u dhaxeeyo xoolo dhaqato Soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaad ka soo jeeda dhanka deegaanka Canfarta. ila dadka deegaanka ayaa sheegay in dhawaaqa rasaasta si xoogan looga maqlayo magaalada agaarkeeda, waxaana la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan. dagaalkan ayaa sidoo kale daba socda mid kale oo toddobaadkii hore ka dhacay aaga haatan lagu dirirayo, waxaana ku dhintay Soomaali fara badan. wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Roble Maxamuud oo waramay VOA ayaa shaaciyay in qiyaastii 350 ilaa 400 qof la dilay isla markaana magaalada ay la wareegeen Canfarta sidoo hadalku dhigay. si kastaba dagaalka labada dhinac ee haatan dib u bilowday ayaa ku soo aadaya xilli shalay maamulka deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya uu shaaciyay inuu difaaci doono dadka Soomaalida ah ee degan aaga magaalada Garbaciise iyo deegaanada kale ee ku dhow. guud ahaan saaxiibayaal waan dhageynta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biro subscribe saar muuqaalkana like saar share garee oo la wadaag saaxiibada. aad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadiino nooli kulantay yamaana Allah.